maanta August 14 tahay waxaan la kulannay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi annagoo ka kooban labadii board ee DB World iyo Free Zone-ka shir weyn aanu yeelanay oo madaxweynaha ugu yeedhay oo aanu iska wareysanay wixii jiray ilaa imika soo socday oo aanu warbixin fiican siinay madaxweynaha iyo siday wax u socdaan iyo tikada oo ay ka soo qayb galeen saddexda maareeyaha haamaha ee cusub maareeyaha Free Zone-ka iyo maareeyaha tikada Berbera أنا كهذا اللي مقع دي بولد بربرة مدحنا عاد بانو بهالنقينا وضشقين ونكسرنا إن شاء الله ونوضي لندننا ورانا بانو ويالني وحنو وشجعنا ومضى سرير سومالي لان ملكستي شوغان إن أي شقدي دي بولد يو فري زون كي أي بلا من دونا هدي لها كديكو حنو بشارين إن أكتوبر مدحنا ودق حدق دونا تكدي بلادين تيدي 400 متر lagu darayo oo multi purpose oo container kile channel cargo gi iyo wax kasta oo tikad casri ay lahayd in la bilaabi doono hadii Ilaahay ka dhigo oo ay soo dhamaatay wixii hawla ku xeernaa oo dhami taas waa bushaarada koobaad waxaan kale ugu bushaaranaynaa ummadda reer Somaliland siiba aan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha guud ee tikada Berbera mudane Saciid iyo oo ay soo ibsadeen oo tikada Somaliland ay soo ibsatay taag boodkii ugu horeeyay laga bilaabo 1972 ilaa imika mid yar ay Somaliland lahaan jirtay maanta waxay soo iibsadeen kii ugu casrisanaa ugu weynaa insha Allah una maalin dhow la soo bandhigi doonaa shalay shantii galmo ay soo dekada Berbera ku soo xidhay dhibaato badanna uu dekada ku xirnaydna uu hagaajin doonaa bushaaro weyn waxay u tahay dadka businessman-ka waxay u tahay Somaliland oo dhan intikadoodii la casriyeenayo oo dhaqaaqayso oo ay la jaan qaadi doonto hadii Ilaahay ka dhigo tikadaha geeska iyo kuwa caalamkaba madaxweynaha maanta si gaar ah ugu mahadnaqnay waxaan ugu mahadnaqnaa soo dhaweyntiisa iyo wada shaqeyntiisa Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaynu reer Somaliland wax ku farxaan oo ummadda wax weyn u tara oo raandis leh inay ka soo baxaan tikada Berbera iyo gaar ah iyo shaqadeedaba hadii Ilaahay ka dhigo aniga ku hadlaya magaca gudida agaasinka free dekadaha iyo Free Zone-ka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi oo maanta isku yeeray shir dhammaan mas'uuliyiintii ka shaqeynaysa ama ka howlgalaysay dekada Berbera saddexda maareeye Free Zone-ka iyo dekada iyo haamaha iyo labadii board boardkii DB World iyo boardka dekadaha iyo Free Zone-ka waxaanu ummadda Somaliland u sheegaynaa in dhammaan mas'uuliyiintaasi ay maanta howlgalkii ay bilaabeen hawshaana ay runtii aan ku rajeynaa in aad uga faa'iido doonto shacab weynaha Somaliland aad uga faa'iido doonaan Free Zone-kii oo runtii imika inoo bilaabay design-ka uu dhamaaday howlgalkiisa uu bilaabmayo kale oo mahad ah waxa Ilaahay mahadiya inay noo yimid toogii muxuu ahaayay taagii noo yimid dekada inoo yimid oo ilaa 1972 kii aanu isticmaalayna kan aan ku bedeli doono kaasoo tayo badan u kordhin doona shacab weynaha isticmaalaya iyo business community-ga isticmaalaya waxaanu ognahay inay dekadu tahay laf dhabarka dhaqaalaha Somaliland haddii maanta aynu ka mid dhalinana uu dhaqaalaheenu aad iyo aad isku bedeli doono aad iyo aad baan mar labaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu mahadcelinayaa shirkaas kuwa ay yeeray waad mahadsantiin